waxaan hubaa in waddankan aad shaqo weyn ka qabateen dhinac kasta marka laga fiiriyo sector kasta marka laga eego haddaad fiiriso hal tusaale oo kooban waxaan filayaa 3 sano ka hor markii aad timaadeen iyo maanta magaalada Muqdisho labo waji oo kala duwan oo aad u kala fog bay leedahay waa tusaale hadday noqoto horumarka hadday noqoto amniga oo la'aantii aan horumarba jirin inta magaalada Muqdisho iska bedeshay in la-eg ayaa dhinac walba iska bedeshay hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo finance-ka hadday tahay dhinaca siyaasadda iyo arrimaha dibadda hadday tahay dhinaca adeega bulshada dhinac kasta marka laga eego intaas in la-eg ayaa iska bedeshay waxaa la hubaa isbeddelkaas yimid inuusan iskaga imanin si accident wuxuu ku yimid dadaal aad bixiseen wuxuu ku yimid idinkoo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo partnerskeena aan leenahay oo ina caawiya ayaad isbeddelkaa keenteen marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idin iraado waad mahadsantihiin marka labaad waxaan hubaa in challenges aad u fara badan ay idin hor yaallaan oo haddana dhinac walba leh amnigu ugu horeeyo dhaqaaluhu ku xigo adeega arrimaha bulshada ay ku xigto siyaasaddu ku xigto challengeyo waaweyn ayaa weli yaal maanta marka waxaynu taagannahay maxataad ka mid ah maxataadkii ay mar walba looga baahan yahay dadka aragtida lihi in intay istaagaan ay yidhaahdaan xaggeen taagannahay shalay xaggeen joognay maanta xaggeen taagannahay berrina xaggeen hiigsanayna ummadii waxaa hagaa dawlad wanaagsan ummadii nasiib leh oo ayaan leh ilaahay wuxuu siiyaa mashruuc ama hogaamiye leh mashruuc wadani ah oo ummadeed oo xambaarsan aragti fog leh qorshayaal cadcad oo aragtidaas uu ku fulinayo isla markaana leh akhlaaq siyaasadeed dhaqameed oo lagu dayan karo intaa hadday meesha ka baxsan tahay waxaa laga yaabaa hoggaankii la rabay inuusan jirin